Assalaamu calaykum bahda muujiya janal. Caawa waxaa miiska noo saaran macluumaad ku saabsan dayaxa ama bisha. Ku soo dhawaada mowduuceena. Dayaxu waa waxa ugu dhow dhulka markii la aado dhanka hawada sare, waxaana lagu xisaabiyaa in uu dhulka raacsan yahay. Waxaa ku tusinaya u dhowaanshiyihiisa dhulka masaafo gaarayso wax ku dhow 400,000 oo kiiloomitir. waana dariska noogu dhow dhinaca hawada sare. Xajmiga dayaxu wuxuu u dhigmaa 4 meelood meel xajmiga dhulka, taasoo loola jeedo in uu dhulka ka yar yahay 4 mar. Dayaxu wuxuu leeyahay weji sii jeeda, laakiin halka weji ee dhulka ku aadan ayaa noo muuqda mar walba, sababtoo ah dayaxu wuxuu la jaanqaadaa dhulka, dhaqdhaqaaqooduna wuu isku xiran yahay. Waxaa laga yaabaa haddii nala weydiiyo inteena badan faa'iidada dayaxu u leeyahay dhulka in aan ku jawaabno si iftiin loo helo habeenkii. faa'iidadu intaas way ka weyn tahay. Makhluuqan xajmigan la ciyaar iyo arrin fudud looma abuurin. Faa'iidooyin badan ayuu dayaxu u leeyahay dhulka, sida isku dheelitirka miisaanka waxyaabaha dhulka dul saaran, dhaqaajinta hirarka badda. Haddii aad badda xeebteeda fadhido, waxaad arki biyaha badda marna soo baxayo marna dib u laabanayo. Waa hirarka jambiyada badda garaacaya. Haddaba arrinkaas waxaa sabab u ah dayaxa. Ujeedashada dhulka iyo dayaxa ayaa keenaya arrinkaas. Waxaa looga qiyaas qaadan karaa magnetka birta soo jiida. Haddii aad musbaar ama bir yar dhulka dhigto kadibna aad dul mariso magnetka adigoon taabsiinin, waxaa dhaqdhaqaaq sameynaya birta yar. Dayaxuna waa sidaas oo kale, laakiin waxaa ka xoog badan soo jiidashada dhulka. Haddii dayaxu ka fogaan lahaa meesha uu joogo hadda, maraakiibta iyo doomuhu uma suurtagaleen in ay badda ku socdaan. Halka sidoo kale haddii uu waxyar ka soo dhowaado meesha hadda uu joogo, biyuhu baddu fatahayaan, dhulka intiisa badanna noqonayo mid biyuhu qariyeen. Dayaxu dhulka aad ayuu ugu dhow yahay marka loo fiiriyo masaafooyinka u dhexeeya meerayaasha iyo xiddigaha. Masaafada dhulka iyo dayaxu waxay gaaraysaa sidaan soo sheegnay ku dhowaad 400,000 oo kiiloomitir, taasoo ka dhigan kantaalada dheereeya ee dayax-gacmeedyada qaada ay u socdaan 8 saacadood. Saacadiina waxay jarayaan 58,000 oo kiiloomitir. Dayax madoobaadka. Dhacdo kasta oo koonkan ka dhacdo waxay ku dhacdaa idinka Ilaahay. Dayax madoobaadka waxaa sabab u ah galitaanka dhulka dhexda dayaxa iyo qorraxda, taasoo keenta in la waayo iftiinkii ka imaanaya bisha. Asxaabay, mowduuceena halkaas ayuu nagu egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.